haddana waxaa ugu su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena oo ah xog aruurin iyo cilmi baaris badan oo ku aadan xagga maamulka kalluumaysiga. waa mahadsantahay kabtamaad horta hadday timaado xog aruurin muuqaalka hore waa uga hadlay baarista laakiin markii hadda maanta aan ka hadlayno baarista tan ah waxaa waajiba subax kasta in xeebaha dalka lagu dheelmado ribood laga diyaariyo dadka deegaanka iyo kalluumaysatada la wareysto si kalluunkii dabargo-ayo ama kalluunkii ii sheegay caafimaadka qabo iyo kan xanuunsan iyo dhammaan sida loo ogaado waa in subax kasta xeebta la tagaa dadka deegaanka soo gudbiyaan xog ah ama wasaaradda kalluumaysiga ama hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed ama wasaaradda gaadiidka dekedaha subax kasta ribood ay soo qaadaan kalluumaysatada loo tago kalluumaysatada iyo dadka deegaankana ay soo gudbiyaan wixii ay arkeen in deegaankii wax kusoo siyaadeen iyo in wax ka naaqusbeen marka aruurinta baaristaas waa tan maalin kasta kalluunka la keenayo cabirkiisa lagu ogaanayo maanta yaa u badnaa laleeyahay kalluunka imaaday oo baarista waxaa kamid a tusaale oo kale maanta waxaa imaan karo kale waxaa soo go-ay oo kale jeestada dadka ku shaqeeya oo kale istawaaniya soo go-ay ama jaadar waaweyn soo go-ay markay soo go-aan oo kale ama lambuuro kala soo go-day iyo libaax markay intaasoo kale maanta ay soo go-aan waxaa laleeyahay isha tusaale oo kale saaka waxaa socoto jeestadii waxaa soo wada bata kalluunka jilaabka lagu soo wada qabanaya jeestada ahaa waxaa yar kalluunka shabaagtiga lagu soo qabtay marka saas oo kale hadhow waa isbedel cagsiga noqonay xilli waxaa jirto jeestada lagu shaqeynayo shabaagta lagu shaqeynayo laleeyahay maanta waxaa socoto jaadar iyo sucbaan iyo sarnuuro commercial fish oo daanberi ah waxaasoo dhan socoto iyo quboo kale qubada lasoo qabto iyo baalaleed waa taqaanaa sidoo kale oo lasoo qabto argoosatada marka xilliba kalluunka waxbaa badan marka baarista la sameynayo saaka kalluunka kee u badnaa keesa haddana maanta lisleeyahay kalluun waxaa jira dabar go-o ama kalluun yar aan ugu talagelay inaan lasoo qaban aan ganacsan la keenin bulshadana ay soconin marka baarista taasay noqonay xog aruurinta marka hadda ciwaankan maanta ka hadlayna taagana aad marka kabtan ma la dhihi karaa xog aruurinta markay taas noqoto xagga cilmi baarista kalluunka la soo qabta kalluunka la keeno iyo hadda cilmi baarista sambal inay ka qaado kalluun kasta qayb ka mid ah kalluun in la qaado shaybaar la geeyo waxaa lagu ogaadaa kalluunka saakas la keeno xeebta oo tusaale oo kale kalluun waxaa jira habeenka shabaabka kuu geli karo ama jeestada kuu geli karo oo waxaa jirto subaxdii markii la keeno xoogaa laga shakiyo oo la dhaho bal saakay kalluunka waa ka shakisan nahay aan baarno macnaha waxaa la ogaanaya inuu kalluunkan sumaysmay ama badda waxyeelo maraakiibta iyo doomaha waaweyn waxay daadiyeen oo kale oo ishay oo kimikaal ah kuwaas inay saameyso kalluunka marka waxaa waajib noqonaysa in la qaado shaybaarka la geeyo oo 100% la ogaado caafimaadkiisa marka library saasoo ku imaada inkastoo hadda jaamacadda Banaadir 2015 bilowgeeda iyo 2014 shaybaar oo ku meel gaar ay keeneen waxa moodaa hadda taayiga xataa oo sheeg maalinta la yiraahdo maanta waxaa la bilaabaya barnaamijka badda ah 6 bilood ama 2 sano ugu horeyso xiisa dalka ku yeeshaa waana carqaladda ugu badan ee jirto waxaa raba jaamacadda Banaadir inaan meeshaan fariin uga gudbiyo waan raba inay attention ama isha muhiimada gaar ah ama dhiirigelin gaar ah inay siiso dhalinyarta barata cilmiga badda inay dhiirigelin nadiif ah ay siiso wali waxaan ka codsanayaa in barnaamijka badda kor u qaadaan dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalo kuwa dowladda maamusho iyo kuwa bareefadka leeyahay cilada jirtaana waxay tahay barashada cilmiga badda labada sano ama 3 sano 4 sano difcad ugu horeyso kale markay baxdo waxa moodaa in jaamacadaha dadka ka niyadjabayaan oo aan la wadin marka halkaas waxaa rabaa inaan fariin cad uga diro bulshada Soomaaliyeed goobaha waxbarashada lagu barto sida jaamacadaha iyo akademiyada kale in dhammaantood 100% ay bushgareeyaan cilmiga badda waana cilmi aad u weyn ilaahay dalkeena wuxuu dhigay waa saddex isku haysanaa caalamkan badanaa wadan haddaad tagto Yurub ku yaala ama saddexdaas isku haysta jiro waxaa isku haysanaa waa baddi beerihii
iyo xoolihii iyo webi iyo webigii oo beerta ii sheeg lagu waraabiyo. lagu waraabin lahaa. Marka saddexdii dakhliba ilaah wuuna kulmiyey hal wadan oo nagu kulmiyey. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa cilmiga badda xaggeeda in boqolkiiba 99 culeyska la saaro oo jaamacadaha saaraan. Waana fariin aan uga codsanayo dhammaantooda. Marka waa mahadsantahay. Intaas uga baxaya aniga maanta wareysigeena. Mahad maanta waxaa moodaa inuu saaid iyo wareysanayo in laga qabtana waa jeclaan lahaa commentiga iga soo qora. Waxaan ku tiraahdaa bal horta barnaamijkeena intaas oo naga dhamaaday. Marka fariintaas jaamacadaha iyo akademiyada ku shaqo leh cilmiga badda waa inay barnaamijkaas oo cilmiga badda ah ee culeys ka saaraan anagoo ka codsanayno dhalinyarta dalka joogtana ka mid nahay. Codsi inaad saartaan sheybaarka keentaan library keentaan hawaaroodu sameysaan. Cilmiga badda waxaa moodaa inay kaalin fiican aan ka qaadanayn jaamacadaha dalka aysan soo gudbinaynin. Ii sheeg aan moodo inay gawaabsi yihiin 2 dafcadood ama 3 dafcadood jaamacadda markay qabato waxay bilaabayaan inay wax dhusgareeyaan meeshii la rabo inay wax soo badiyaan mahado. Marka ii sheeg insha Allah barnaamijkan waxaan rabaa inuu taxano sii noqdo. Halkan waxa u fadhino waa idinka, waxa halkan wax uga soo gudbinayno waa idinka. Waxaan rabnaa codkan hadduu inay soo gaaro dhammaan inta ku xiran Sam Gold Office inay kaalinta xoogga leh ka qayb qaataan luqyada ama ii sheeg mobilada wasaabiyada ugu geysaan dadka maanta ii sheeg jaamacadaha u furan yahay ama public ha noqoto ama private ha noqoto si barnaamijkan cilmiga badda ee horumar looga gaaro ee u sameeyaan aan mahadsantihiin. aad aad mahadsantahay kabtan sida quruxda badan aad ugu jawaabtay su'aalaha barnaamijkeena iyo sida quruxda badan oo dardaaranka iyo dhiirigelinta ugu dareysa bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa jaamacadaha intaba. Marka aad aad mahadsantahay asxaabtana waxaan idin leenahay macalinkana waa mahadsantihiin sida quruxda badan barnaamijkan ula socotiin. Haddana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.